murtida maanta. inta buufimo taal biri ma qabowdo. dabku waxa uu ku huraa dabayl. haddii la doonayo inuu aad u baxana waxaa la siiyaa dabayl xoog leh, buufin iyo babbin iyo afuufid mid lagu siiyaba. buufimaduna waa qalab xoog leh oo aad dabka loogu afuufo ilaa birtu ay caddaato. murtida hawraarteeduna waxay leedahay mar haddii buufimo la haysto laga baqi maayo in dabku qaboobo, mar walbana waa uu qaxmahayaa, hawshii lagu qabsadaana waa ay soconaysaa. inkastoo mahmaahda muuqadkeeda sare sidaa yahay, haddana waxa ay ku arooraysaa duluc weyn. carruurtu waxa ay u baahan tahay rabbayn iyo laylin waqti dooraha qaata, waxaana la doonayaa in wax la baro marka ay aad u yar yihiin iyadoo laga soo bilaabayo. sida waxa weeye carruurtu geed curdana oo kale. inta uu yar yahay haddii laamihiisa la toosinayo waa ay toosayaan, marse hadduu weynaado oo la isku dayo asagoo gahayroobay in la toosiyo waa jabaa. haddii carruurtu ay leedahay sida murtida aanu ka garanayno waalid wanaagsan oo tababara oo waxbara inta ay yar yihiin oo tusoo ku hanuuniya waddada wanaagsan, waxaa weeye macnaha aanu ku joogno oo ah inta buufimo taallo biri ma qabowdo. waxaa waalidkaa la mida asaguna macallin. haddii uu jiro dalka macallin dadka u bara si daacadnimo ah oo carruurta wax tusaaleeya kuna layliya aqoonta, dabeecadoodana qora sida dhirta loo qoro, waa ay hagaagaysaa oo waxay u raacaysaa taasuna rabbayntii waalidku uu rabbaynayay. intaa kaliya kuma soo koobna dulucda loola jeedo murtideenna maanta. waxa ay u tallaabsanaysaa meelo badan. dhismaha waddanka haddii aanu ka soo qaadno, waddanka magiciisu isdhimi mahayo, dhismihiisuna wuu kordhayaa mar walba inta la heli karo ummad ishaysata oo daacadnimo uga shaqaynaysa oo sare u qaadaysa. sidoo kale haddii ay jiraan dad shaqaale ah oo hawshooda si adag iyo dar-allanimo u qabsanaya, waddankoodana wax weyn ku kordhinhaya maalin walba, bil walba iyo sanad walba, waddanka horukiciisu gaaban mahayo ee waa soconaya mar walba. oo waxa uu ku soo dhacayaa mahmaahdeenna ah inta buufimo taal biri ma qabowdo. haddii la fiiriyo dhan kaleeto, inta ay jirto dowlad ama uu jiro dad talada u haya dalka oo aan ninna kaga weji gabxin waxa waajibka ku ah inay qabsadaan, oo aan ninna ugu calool dabcin marka uu waddanka dembi ka galo oo uu sharafkiisa dhaawaco, gobonnimadu joogsan mayso ee weligeed meel wanaagsan iyo marin toosan ayay maraysaa. murtideenna maanta ee ah inta buufimo taal biri ma qabowdo, haddii aanu fiirino ee tixraacno, waxa ayna tusaysaa qaybaha ummaddu u dhisan tahay, qayb walba marka ay ka baxdo waajibkeeda oo sida la doonayo ay qabato, waxa ku habboonna ay aqooto, waddanka horukiciisa iyo magaca ummaddu waa soconayaa ee marna istaagi mayo.